xiisad xooggan ayaa ka taagan degmada aato gobolka bakool ee koonfur galbeed. saddex maamul ayaa loo soo magacaabay degmadii arbaa wiilal ilmo adeera oo saddexduba haddana ilmo adeera ayaa qori la iskugu dhiibay. waa markaydii ugu horreysay oo aan maqlo guddoomiye baarlamaan oo maamul degmo soo magacaabaya. weligay ma arag siyaasad xumo intaa leeg, waxayna ka turjumaysaa siyaasad xumada maanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. sheekh aadan madoobaaba degmo ay degaan niman daarooda weliba ogaadeena beel ogaadeen kamid ay degaan yaaba maamul usoo qorayaba isagii baaba soo magacaabayo le maamulkan anigu waan soo magacaabaa meesha ka shaqaynaya. saddex dhagar qabe ayaa waxa weye u tashatay shacabkii deganeyd degmada aato ee gobolka bakool. maanta wiilasha ilmo adeerka ee hubka la iskugu dhiibay wax run ahaantii loo dul qaadan kara ma aha. waxaana loo baahan yahay in arrintaa laga dhiidhiyo oo dhagarta iyo khiyaamada laga hortago. kulanti wanaagsan saaxiibayaal, subax wanaagsan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, meel walbood naga daawanaysaanba soo dhawaada. waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xiisad xooggan ayaa ka taagan degmada aato ee gobolka bakool ee koonfur galbeed. 24 saac ee ugu dambeeyeyna dagaal ayay qarka u saareen ilaa iyo haddana xaaladda weli way cakiran tahay. walow dadaalo ay socdaan ay wadaan odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo waxgaradka oo la doonayo in inta uusan dagaal dhicin arrintaasi looga hortago. xiisadan ayaa salka ku haysa saddex maamul oo laga soo magacaabay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeedba. saddexdan maamul mid waa kii sii joogay ee meesha 7 sano ee ugu dambeeyeyba sii hayay ee xilka hayay, iyo mid ay soo magacaabeen maamulka koonfur galbeed oo ay wax ka ogyihiin, iyo mid koonfur galbeed iyo dowladda federaalku ay isla soo magacaabeen. guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sheekh aadan madoobe iyo xubno kale oo isaga ka agdhow ayaa la sheegayaa inay faragelin badan ay ku hayaan degmadaasi. waan dul istaagi doonaa xiisadda halkaasi ka taagan iyo marxaladda adag ee dhowrkii maalin ee ugu dambeeyeyba degmada aato ee gobolka bakool ay wajahayso. faragelin dhinacyo kala duwana ayaana tilmaami doonaa. waxaan dhinaca kaleeto dul istaagi doonaa isdiidooyinka siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, isgarabyaaca siyaasadeed ee dowladda federaalka ama filla Soomaaliya waayihii ugu dambeeyey dalka ay ku hogaaminayso oo sababay dagaal beeleedyo tusbax furtay iyo marxalad adag jahwareer siyaasadeed gelisay dalka ayaan iyadana iftiimin doonaa hadduu alla idmo. soo dhawaada muuqaalka la egsaara fogeeya meel dheer ka tuura. aynu ku bilownay degmada aato ee gobolka bakool. waa suurtagal adiga i daawanaya inaadan aqoon badan u lahayn degmada, laakiin khasab maaha inaad degmooyinka Soomaaliya oo dhan aad wada barato. anigan social media ku jira ayaa suurtagala inaan degmooyin la yaqaano oo degmooyina oo laga yaabo 30 sano 40 sano inay degmo ahayd ama 50 sano ay degmo ahayd inaan aqoon u lahayn. khasab maaha, laakiin waxa muhiimada inaan wadaagno oo aan anigana inala socodsiiyo adigana aad sii gudbiso, aanad baratid xiisad walba oo Soomaaliya ka taagan iyo waxa ay salka ku hayso. degmadan aato waa degmo ka tirsan gobolka bakool. 1983 ayaa la magacaabay. degmooyinkii ugu dambeeyey siyaad barro uu magacaabay ayay ka mid ahayd. gobolka bakool ayay ka tirsan tahay. waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka bakool, walow ay jirto xaqiraad iyo sidoo kaleeto gacan bidixayn fara badan oo lagu sameeyey oo ay ku sameeyeen intii dowladda Soomaaliya markii ay dhacday. maamuladii hadda 20 sano ee ugu dambeeyey ku meel gaariyadii iyo maamul goboleedka intii la sameeyeyba gacan bidixayn badan baa lagu sameeyey. dadka deegaankana khilaaf badan baa laga dhex abuuray oo sabab u noqotay in degmadu hoos u dhac badan uu ku imaado. ilaa iyo maantana khilaafkii weli waa taagan yahay. arrintan hadda taagan ee ugu dambeysay ee degmadu ayba qarka u saaran tahay inay xabadi ka dhacdo waxay salka ku haysaa magacaabista saddex maamul. maamul horey horta degmadu lahayd oo uu guddoomiye ka ahaa ninka la yidhaahdo Dhubad Xasan Cali, wax dhibaataa kama taagnayn, cabashana dadka deegaanku kama aysan qabin. laakiin maamulkii koonfur galbeed baa waxay garteen in isbeddel loo baahnaan karo. xilkuna waa meerto, waa isku qori u dhiib. waxaa la soo magacaabay markay wada tashadeen xildhibaankii degmadan ka soo gelayay ee heer koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiintii kaleeto ee koonfur galbeed u qaabilsanay degmadan iyo maamulkii degmo ee koonfur galbeedba markay tashadeen in isbeddel lagu sameeyo. waxaa la soo magacaabay maamul cusub oo guddoomiye uu ka yahay cabdinaasir
maxamed khayre oo waxa weeye maamul cusuba ayaa loo soo magacaabay. dadka deegaanku wax dhibaataa kama aysan qaadin, wax hadda dhibaato weyna kama taagnayn, walow ay arkayeen in magacaabistan dadka deegaanka iyo cabasho ka timid aysan ahayn. haddana in maamul la bedelo oo lasoo magacaabayey waa wax iska caadiya. maamulkii markii lasoo magacaabay nin xildhibaan ah oo heer federaal degmada u xil saaran iyo sidoo kaleeto sheekh aadan madoobe oo guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddoomiyihii gobolka oo isagana la yidhaahdo cabdi toolo nin fidmo badan oo dhibaato badana ayaa tashadeen. waxaa la yidhi ku dhawaaq maamul kale, ku dhawaaq. nin kale haddana lasoo magacaabay oo la yidhaahdo isxaaq ibraahim ayaa lasoo magacaabay. waa meeqa maamul? maamulkii hore ee degmada oo uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo dhubbad cali ninka la yidhaahdo uu hogaaminayo. maamulkii dhexe oo isagana taariikh 20 bishii 1 ee hadda tagtay lasoo magacaabay oo uu hogaaminayo cabdinaasir khayre. maamul saddexaad oo uu soo magacaabay guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto xildhibaankii heer federaal degmadan waxa weeye uu xil saarnaa ninka la yidhaahdo axmed mashruuc. waa sida dadka deegaanku ay nala wadaageen, oo isagana intii diyaarad xamar lagaga soo qaaday koonfur galbeedba muu soo marine oo ceel berde laga soo dejiyey ayaa la yidhi ciidankaa qaado, hubkaana qaado, toos u tag baa la yidhi degmada aato oo waxa weeye xilkaa adaa kuu soo magacawnay. yaa soo magacaabaya? waa guddoomiye baarlamaan iyo xildhibaan ayaa soo magacaabaya. kan kale cabdinaasiran ayaa soo magacaabaya. waxaa soo magacaabaya xildhibaankii heer maamul goboleed ee degmadan ee koonfur galbeed u xil saarnaa iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiintii kale ee koonfur galbeed ayaa soo magacaabaya. wasiirkii arrimaha gudaha iyo sidoo kaleeto dhinacyadii ay qusaysay. kii horena waa joogaayoo ninkii dhubbad ahaa ee 7 sano hogaaminayay isagana waa joogaa. saddexdaa maamul oo 3 ciidan kala wata ayaa 24 saac ee ugu dambeeyay dhowrkii maalin ee ugu dambeeyeyba go'doon magaalada ay ugu jirtaa. halis badan bay markaa sababtay. 3 maamul waa la kala taageersan yahay, hubkaaba la qaatayba. waxaa la yidhi maano reebela. waxa dhan horta waa beel ka mida ogaadeen ayaa degta, hal beel baa degta. 3 ninna waa 3 nin oo ilma adeera. laakiin maxay tahay sababta isku haystaan? dad baa isku laynaya, siyaasiyiin baa isku laynaya. siyaasad xumada maanta Soomaaliya taalaay waxa weeye sabab u noqotay in beelihii la isku horgeeyo. maanta meel walbo Soomaaliya kamid ah dagaal baa ka socda. dagaalkaana waxa sababka u ah waa siyaasad xumo. xageed ku aragtay guddoomiye baarlamaan iyo xildhibaan heer federaal oo soo magacaabaya maamul degmo? xageed ku aragtay? war maamul degmo yaa la rabaa inuu soo magacaabo. maamul degmo sooyadii la rabay inay soo magacaabaan wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedkaas, guddoomiyaha gobolka iyo ay iska kaashadaan sooma ahayn oo waxa weeye dadka deegaanka weliba cabasho ka timaaday iyo ogolaansho ka imaatay lagu soo magacaabo. maanta tii ma taalo. siyaasad xumada maanta taalaay iyo faragelinta iyo boobka iyo dhibaatada maanta taalaay iyo abuurista xasaaradaha dagaal ee dowladda federaalka ay wado waa mid maanta sababtay in meel walba dagaal maanta uu ka socdo. degmada aato waa degmo ka mid ah gobolka Bakool, ma qaadi karto, xuduud bay ku taallaa. dhibaato badan bay argagixisada iyo sidoo kaleeto siyaasad xumada iyo gacan bidixaynta maamul goboleedka ayayba markii horeba la daada dhacaysay. ma qaadi karto, ma xamili karto siyaasad kaleeto xamar laga soo abaabulay. waana ayaa daro inteeda leeg in dowladda federaalka meel walba ay farta dabada ka geliso oo meel walba amniya dhibaato laga abuuro. ayaa daro inteeda leeg wey. odayga weyn ee waxa weeye duuduuban ee la yidhaahdo aadan madoobe ee fidmo wadaha ee kabaqaadka u xasan sheekh maxamuud fidmo halkaa ka abuuraya isaga iyo inta la socotaba ayaan daro inteeda leeg weeye. shacabka degmada waxaan leeyahay walow dadaalla ay jiraan oo maalmihii dambe odayaasha iyo ganacsatada iyo dadka dhaqanka ay wadaan waan ay wadaan, waxaan leeyahay nabadiina ilaashada. fidmada laga soo abaabulayo xamar iyo meel walba laga soo tuurayo ee siyaasiyiinta danta gaarka leh ay soo tuurayaan iska ilaaliya. maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiye cabdicasiis lafta gareena waxaan leeyahay mudane madaxweyne weli dhibaato maana sheeganin. gacan bidixaynta iyo dhibaatada gobolka Bakool ka jirtana weli kumaana soo gudbinin. hase ahaatee
waxaan weli ilaalinayni midnimada iyo wadajirka reer koonfur galbeed baan ilaalinayni marar badanna waad aragteen halkan anoo koonfur galbeed kaga hadlaya mudana madaxweyne arrintaas soo farageli sida ugu dhaqsiyaha badan shakhsiyaadka dhowrka ee odayga adigaba madaxtooyada kugu duqeeyey ee meel walba fidmada kaaga abuuray een ogsoonahay ee la yidhaahdo sheekh aadan madoobe iyo ninkaa saaxiibkaa ah ee la yidhaahdo axmed mashruuc iyo waxa weeye ninkan kale ee la socda saddexdaa nina fidmo wadayaasha saddexdaa yaysan dhibaato dhiig badani uu ku daato yaysan sabab u noqonayn ka qabo dadka deegaanka ka qabo adaa madaxweynaha arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ha laga jawaabaan leenahay dhinaca kaleeto weli waxaa taagan ismariwaaga siyaasadeed iyo sidoo kaleeto khilaafyada la xidhiidha hanaanka uu u qabsoomayo doorashooyinka sanadkan hadda ay ka dhiman tahay sanadunba hadda ka dhimani doorashooyinka dowladda federaalka ay wado ee keliga loo yahay ee aan loo dhannayn waxay sababtay in maanta marxalad jahwareer siyaasadeeda dalkeenna ay geliso waana qorshaha hordhaca warkeenna ama kaga hadlay ee ah isgarabyaaca iyo sidoo kaleeto in madaxda dowladda federaalku ay farta geliyaan meel walba ay farta geliyaan oo xasaarad amni darro iyo dhibaato iyo dagaal beeleed ay abuuraan arrintaa waxay uga gol leeyihiin inaanan la helinba meel maanta ay doorasho ka qabsanto inaan la helinba laba siyaasi oo isku imaato in dadkan la mashquuliyo si iyagu waxooda ay u maroorsadaan ama ay adlisti kursiga ay iskaga fadhiyaan waa arrin la yaab la weeye dalkeennu maanta meesha uu ku jiro ilaa iyo kumeelgaarkii markuu soo bilowday iyo waqti xaadirkan meesha maanta uu marayo weligii waxa weeye lama filaynin in dib waxa weeye sidaa loogu noqonayo tallaabooyin dheer baa dib loogu laabtay waxaana loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed inay baraarugto oo ay ogaato kooxda maanta joogta villa soomaaliya halka dalka ay u wado inuusan ahayn meeshii dan u ahayd waxaa la rabaa in beel walba iyo qabiil walba iyo qoys walba iyo inta walboo darisa iyagu ay ka shaqeeyaan amnigooda wadajirkooda midnimadooda la cambaareeyo siyaasad xumada villa soomaaliya maanta ka jirtee dalkeenna dib loogu celinayo ayaa darro inteeda leeg weeye in maanta waktigii xasan sheekh maxamuud uu dhammaaday oo sanad uu u dhiman yahay aanan la haynin tub saxa oo maanta soomaaliya ay heshiis ku tahay inaan maanta la haynin soomaali heshiisa dunida la heshiisa halkudhigii xasan sheekh maxamuud inaan maanta la haynin maamul goboleedyadii iyo sidoo kaleeto cid ku qanacsan nidaamkii federalismka inaan maanta la haynin in maanta la shaki geliyo midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ee la rabay in laga wada shaqeeyo in maanta qoysba qoys ku dhegan yahay oo uu u hub uruursanayo labadii ilmo adeerahayda iskugu dhoweydna maanta ay isku hub urursanayaan oo iyagiiba waxa weeye ay rabaan inay nafta iska gooyaan ayaa darro inteeda leeg weeye sanadihii lasoo dhaafay arrintaa waa laga soo badbaadayey waa laga soo kabanayey dagaal beeleedyada laga soo kabanayey qabaa'iladii baa laga soo kabanayey dowladnimo iyo system baa lagu socday iyo nidaam isku qoridhiiba iyo nidaam wadatashiya iyo nidaam ninba meeshuu ka qaaday intuu kasii qaaday horay uu usii wado ayaa lagu soo jiray laakiin hadda madaxweynihii ma xanuun baa ma talaxuma ma u kasbaa lama garanayo maanta kuu joojin ma waxba kaa weydiin ma adiga waxa weeye kuma qusayso ayuu dalkii ku hogaaminayaa taasna dalkeenu maanta ma xamili karo oo ma qaadi karo iyadoo dowladi federaal ay jirto iyadoo dowladi dhexo awood badan ay jirto libaxa africa aan nahay ayaan taa ku burburnay oo aan ku dunnay oo ay noo suurtageli weyday maanta marka ma suurtagelayso